wardegdega ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu ballaarnaa saaka aroortii waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. Nala daawada ciidanka oo weeraray goob gabaad u ahayd argagixisada Al-Shabaab. saad aragteenba waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay duulaan culus ay saaka aroortii ku qaadeen goob ay ku gaban jireen kooxda nabadiidka Al-Shabaab. goobtan waa tuulo hoos tagta Buulanaagay waxayna ciidanku ay ka sameeyeen howlgalladii ugu cuslaa oo lala bartilmaameedsaday fariisimo ama difaacyo kooxda argagixisada ah Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaas. oo kala duqeymo xoogan waxa ay ka dhaceen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka oo aynu ku xisi karno gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. saddexdaas goobo ay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka Al-Shabaab ayaa waxa laga sameeyay duqeymihii ugu cuslaa waxaana la gaarsiiyay argagixisada qasaare aad u xoogan. haddaynu ka hormarno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan deegaanka Buulanaagay iyo deegaano ku dhow ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgalladii ugu cuslaa saaka ay ka sameeyeen tuulooyin hoos taga degmada Marka qaasatan deegaanka Buulanaagay oo ah wado toos u xiriirsan Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose. waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in ay gudaha u galaan goob gabaad u ahayd argagixisada Al-Shabaab. muuqaalada basaad ku arkaysaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaf wareegaya deegaanadii ciidamadu ay howlgallada ay ka sameeyeen waxayna ciidamadu sidoo kale ay qasaare xoogan ay gaarsiiyeen kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. warka aynu ka helino deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan deegaanka Buulanaagay ayaa waxay sheegayaan in saaka qasaarihii ugu xooganaa la gaarsiiyay kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose inay ka nadiifiyaan argagixisada Al-Shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxay taasi ku darayaan in ciidanku ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan tiro ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Shabaab ugu horeeyaan horjoogayaal gaaraya ilaa 3 horjoogo oo hogaaminayay howlgalladii Shabeellaha Hoose ka dhacay iyadoona ciidamadu ay ku guuleysteen in ay dilaan 3 horjoogo oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab. howlgalladan oo ahaa kuwa baaxad weyn ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen gandarshay jilib Marka ilaa Dhanaane waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku guuleysteen deegaanadaas ay guud ahaanba ka tirtiraan kooxda khawaarijta Al-Shabaab. mid ka mid saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inuu xaqiijiyay in ciidanku ay howlgallo ballaaran ka sameeyeen goobahaasi waxayna ciidanku ku guuleysteen in guud ahaanba cagta ay mariyaan fariisimo dhowr ah ay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in gabi ahaanba deegaanadii ay howlgallada ay ka sameeyeen ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. taliyaha guutada 20aad ee Commandos-ka Gorgor Maxamed Sheekh ayaa inuu xaqiijiyay in howlgalladii ugu cuslaa ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan wadooyin maran dhanka xeebta degmada Marka qaasatan tuulooyin hoostaga degmooyinka Jilib Marka Gandarshay ilaa Dhanaane waxayna ciidanku ay ku guuleysteen goobahaasi ay ka sameeyaan howlgalladii ugu cuslaa oo lagu la dagaalamay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. warka sidoo kale waxay sheegayaan duqeymo dhanka cirka ah inay ka dhaceen deegaanka Dhanaane waxaana duqeymahaasi lala beegsaday kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. Shabeellaha Hoose waxaa si xawli ugu soconaya howlgallada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. howlgalladii ugu dambeeyay ciidanku waxay ka gaareen guulo aad u waaweyn. markana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe. warka aynu ka helino deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallada ay ka sameeyeen deegaanka Cadaan Lixi, Cali Fool Dheer iyo tuulooyin ku dhow waxayna halkaas ciidamadu ay ku qaarijiyeen tiro aad u badan oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay gudaha u galeen goobo ay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka. sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan goobo ay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka Al-Shabaab waxaana qasaarihii ugu xooganaa loo geystay koox doonaysay inay weeraraan fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. warka sidoo kale intaas waxay ku darayaan ciidanku ay ku guuleysteen in gabi ahaanba ay gudaha u galaan goobo dhowr ah oo lagu tuhunsanaa inay ku dhuumalaysan jireen nabadiidka Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ballaaran ee lagu la dagaalamay khawaarijta Al-Shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku guuleysteen in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka nadiifiyaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab. cutubyo aad u tiro badan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay gaareen furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidankan ay ku biirayaan dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale saraakiil Turki ah ay ciidamada Turkiga ayaa ka qayb ahaa howlgalladii saaka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana jab xoogan la gaarsiiyay kooxda nabadiidka Al-Shabaab. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inuu xaqiijiyay in ciidanku haatan ay howlgalladii ugu cuslaa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu ku guuleysteen goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi inay ka nadiifiyaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab.
wararka sidoo kale waxay sheegayaan in haatan oo idinla hadlayo oo subaxnimaha ciidanku ay gaaf wareegayaan ama dagaalo adag ay kula jiraan kooxda nabadiidka ee al-shabaab dagaaladaasna waxay ka soconayaan deegaano dhaca deegaanka jabadgodoni ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weeraray goob ay isku urursanayeen in kuna geel qalanayeen kooxda nabadiidka ee al-shabaab waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in goobihii ay nabadiidku isku urursanayeen in si degdeg ah ciidanku ay u gaaraan wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in howlgaladii ugu cuslaa saaki ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si xawliya maalmahan ugu soconayay howlgalada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay ciidanka howlgaladaasna waxa ay ka gaareen guulo aad u waaweyn iyadoo ciidamadu ay jab iyo khasaaro xooggan ay gaarsiiyeen kooxda naflacaariga ah ee al-shabaab taliska xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka General Ibrahim ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qaadi doonaan gulufka ugu xoogana oo ka dhan kooxda nabadiidka ah wuxuuna taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay in loo diyaar garoobo guluf culus oo lagu qaado goob kasta ay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka al-shabaab General Ibrahim ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay weerari doonaan goobo badan oo ay ku dhumaalaysanayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab taliyaha ayaa xusay in uu gaari doono furimaha hore ee dagaalka si uu hogaamiyo dagaalka isagoo carabka ku adkeeyay in ciidanka Soomaaliyeed guud ahaan looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ay la galaan kooxda nabadiidka ee al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya abaabulka ugu xoogana ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo ciidamadu ay dhowr jaha oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay kaga kala dhaqaaqeen waxayna ciidamadu ku wajahan yihiin goobo lagu tuhunsan yahay inay gabaad u yihiin kooxda nabadiidka ee al-shabaab sidoo kale howlgalada waxaa barbar soconaya duqeymo dhanka cirka ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka heliyaan saaxiibada dowladda Soomaaliya ka taageeran dhanka cirka waxaana saakay qasaarihii ku xooganaa la gaarsiiyay kooxda nabadiidka ee al-shabaab duqeyn ka dhacday tuulooyin hoostiga degmada Aadan Yabaal halkaas oo nabadiidku xiro weyn ku tababaranayeen dhalinyaradooda ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka waxaana halkaas lagu waxyeelay ilaa 82 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee al-shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgalada ballaaran ee lagu la dagaalamay kooxaha nabadiidka ee al-shabaab markan gobolka Hiiraan waxaa si xawli uga soconaya gulfiyo xooggan oo ka dhan kooxaha qawaarida ee al-shabaab deegaanka Yasooman Aboorey Teedaan Murdaar iyo deegaano ku dhow gobolka Hiiraan waxaa si dardar leh uga soconaya howlgalada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ayaa weeraray ayaga oo kaashanaya ciidanka macawisleyda goobo lagu tuhunsan yahay in ku dhumaalaysan jireen nabadiidka al-shabaab wararka aynu ka helino gobolka Hiiraan qaasatan deegaano ku dhow aagga Yasooman ayaa waxay sheegayaan in ciidanku ay dagaal culus ku qaadeen goob gabaad oo u ahaayeen nabadiidka al-shabaab waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan duqeymo xooggan oo dhanka cirka ah in laga sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoo duqeymahaasi lala bartilmaameysaday goob ay ama gabaad u ahayd kooxda argagixisada ee al-shabaab Hiiraan waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wadaan gulfiyada xooggan ee ka dhan kooxaha qawaarida ee al-shabaab waxayna ciidanka maalmihii ugu dambeeyay ee dagaalkii ugu adkaa ay la galeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab wararka ayaa sidoo kale waxay intaas ku darayaan in ciidanku haatan ay gaaf wareegayaan goobihii ciidamada howlgalada ay ka sameeyeen degmada Maxaas iyo Moqokuri ama degmooyinka Maxaas iyo Moqokuri ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ee ciidanku howlgalada uga wadaan tuulooyin hoostaga deegaanadaasi ama degmooyinkaasi ay ciidamadu howlgaladii ugu ballaarnaa ay ka sameeyeen waxayna ciidamadu ku guuleysteen in miinooyin dhowr ah ay ka soo saaraan jidad mara degmooyinka Moqokuri iyo Maxaas halkaas ay ku dhumaalaysan jireen ama ay ku dhumaalaysanayeen nabadiidka al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sii dardargeliyay howlgalada culus ee ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaano dhaca gobolka Hiiraan ayaa waxa uu hogaaminayaa howlgalada ka socda gobolka Hiiraan waxa uuna taliyuhu sheegay in goob kasta ay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka al-shabaab laga bilaabi doono dagaal xooggan oo ka dhan ah qawaarida al-shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan jihooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay dagaalo adag kula galeen kooxaha nabadiidka wuxuuna xusay in maalmaha soo aadan deegaano dhowr laga sifeyn doono kooxaha qawaarida ee al-shabaab guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawliya dardar looga soconaya howlgalada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamaduna deegaano dhowr ah ay ka sifeeyeen kooxaha qawaarida ee al-shabaab Jubbaland ayaa ka mid ah goobihii saakay ciidamada howlgalada ay ka sameeyeen guutada Barjeex ayaa waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano dhaca deegaanka Baarsanguuni ee dhanka webiga waxayna halkaasi ku qaarijiyeen 4 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab kuwaas oo si dhuumaaleysi ku soo galay tuulooyin aan ka fogeyn deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose wararka ay sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland ee deegaanka Gudda iyo tuulooyin ku dhow ee ka wadaan saakay howlgaladii ugu cuslaa
guud ahaan wuxuu ku soo kordhaa howlgallada culus ee ka soconaya deegaaniyo tuulooyin dhaca gobolada dalka janalkeena ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu muuqaalka ku soo gaaro meel inoo gaarsiiya janalka subscribe noo dheh waa mahadsantihiin